waxaan idin soo gudbinaynaa hal iyo laba ka mid ah barnaamijka qaybaha uu ka kooban yahay waxaan tusaale ka soo qaadanayaa maamul goboleedyada Soomaaliya iyo sida u isticmaalaan ereyga la yiraahdo madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha waynu garanay oo inta badan idaacadaha laga maqlay telefishinka waxaa suurtagal ah in madaxweyne ku-xigeenada aan magacyadooda qaarkood la aqoonba waxaa ka mid ah Hirshabeelle oo ku madaxweyne ku-xigeenkeedu waxaa ka mid ah koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenkeeda kan Kismaayo isna dad badan ma yaqaanaan marka sababta keenaysa waxa weeye marka ugu horeysaba habka loo isticmaalayo dastuurku waxa weeye waa bil awood madaxweynuhu beesha uu matalayo magacyada buu yahay maanta tusaale waxaan soo qaadanaynaa labada madaxweyne ku-xigeen ee Somaliland iyo Puntland xagay isaga yihiin maxay wadaagaan shaqooyinkooda waxay ka siman yihiin labada madaxweyne ku-xigeen waa Saylici iyo Inacmay Cabdilxakiim number 1 awood la'aanta midkoodna awood ma leh warqad ma saxiix karaan oo awood oo dhan madaxweynaha ama nin madaxweynaha matala ayaa gacanta ku haya beelaha ay matalaan waxay u arkaan inay yihiin magacyada shaqooyinka qabtaan waxa ka mid ah furitaanka seminaarada ku saabsan gudniinka xiritaanka ciyaaraha gobolada ka hortagida tahriibta iyo dhalinyarada waa waxa qura ee loo dhiibo ee lagu aamino si aanay markaa ay madadaalinta uga dhigtaan waayahay waxay kaloo labadooduba ay isaga egyihiin jawaab celinta marka beelaha ay matalaan ay cabanayaan oo ay dawladda ka cabanayaan cidda afayeen looga dhiga la yiraahdo anagu waa ka xishoonay ereydaas idinku ereyada idaacadaha ka sheega oo hilfa u qaada iyana waa loo isticmaalaa madaxweyne ku-xigeenada meelaha isaga waxa ka mid ah shaqadooda oo aanay u madax banaanayn number 2 ma dhoofi karaan labadooda haddii midkood jabo lug ama gacan ka jabo wan ama Hargeysa ama Garowe lagu kaba lama ogola in Jarmalka iyo la geeyo iyo meelaha kale ee lagu daweyn karo waaye telefoonka xafiisyadooda haddaad dirsid markaba waa laga qabanaya hello waa lagu leeyahay waaye madaxweyne ku-xigeenka boring buu kaliya iska dhex fadhiya meeshii telefoonkaas uu haystaa wax uu hela dharar ma duulaa soo gooday kuwa kalena agaasimayaasha ma heli kartid way adagtay waaye sometimes labadooduba staffkooda ay dibnada la ciyaaraan wali ma jiraan madaxda Soomaalida qaar dibnada ama turub ciyaara waxay keenaysaa taasi ay ka turjumaysaa in ay jirto shaqo la'aan waaye waxay labadooduba ka siman inkastoo kaftan tahay haamansiga labadoodu waa haamansanayaan subax kasta oo leey sababtu waxa weeye waa caajiska xafiiskaas